ku soo dhawow channelka Galgalan News taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aan soo gelino Galgalan News. oo ay taariikhdu tahay bisha Afraad 3 waxa qabsoomay shir aad u muhiim u ah oo dhex maray ganacsatada Puntland iyo dawladda Puntland oo hogaaminayay mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Kulankaas waxa lagu falaqeeyay arrimo badan oo la xiriira horumarinta dhinaca dhaqaalaha iyo amniga. Waxaana furay shirkaas gudoomiyaha gobolka wuxuuna ku nuuxnuuxsaday sida ay muhiim u tahay in laga wada shaqeeyo horumarinta dhaqaalaha iyo ka wada shaqeynta amniga guud ahaan ummadda Puntland gaar ahaan ganacsatada iyo dawladda Puntland. Madaxweynaha ayaa asna sidoo kale hadalka qaatay oo shirka gudoominayay wuxuuna ballan qaaday inay dawladdaani diyaar la tahay wax kasta oo dhaqaalaha waddankan lagu horumarinayo isla markaasna xasiloonida iyo amnigana sidoo kale lagu horumarinayo. kulankan oo muddo socday oo ganacsataduna ka hadleen fikrado badan oo wax ku oran iyo go'aano badan oo ay hore u gaareen soo jeediyeen waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin dawladda inay garab istaagaan. waxay ballan qaadeen inay rabaan maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalahaba inay kor u qaadaan. ganacsatadu waxay ballan qaadeen dawladda inay garab istaagayaan boolisiga ama shuruucda dawladdu la timaadana ay gacan ku siinayaan. shirka oo socday muddo adigu 2 saac waxa soo gabagabeeyay madaxweynaha wuxuuna ku soo xiray dawladdaani inay qorshayaal badan oo dhinaca horumarinta iyo amniga ay yeelatay oo uu ka soo baxay shirkii jahaynta siyaasadda Puntland oo dhamaaday 15 bishii la soo dhaafay kaas oo ku qotamay in xoog la saaro dawlad wanaaga, in xoog la saaro horumarinta dhaqaalaha, in xoog la saaro horumarinta iyo xoojinta amniga. runtii arrimo badan baa laga hadlay waxyaalo badan oo caqabadaha sidoo kale oo laga hadlay jiray iyagana waxa laga gaaray sidii wax looga qaban lahaa sida horumarinta dekedda, horumarinta aeroboorada, horumarinta infrastructure-ka wax badan baa laga qabtay shaqaaleynta dhalinyarada. arrimahaas oo dhan waxa la isla gartay in laga wada shaqeeyo wuxuuna shirkaas ku dhamaaday is-afgarad iyo in horay ummadda Puntland oo shaqada gacmaha is wada haysata ay hore u